soo dhawaada akhyaarta waa barnaamijkeennii sidee u badbaadi lahayd oo aad u xiiso badan ka waran daawade adiga oo diyaarad raacay haddii aad aragto ayada oo soo dhacaysa daruurahana ku dhex jeexaysa xawaare aad u sareeya korkaagana uu ka soo dhaco maaskarihii loogu talagalay badbaadada isku day inaadan argagixin sababtoo ah shilalka diyaaradaha waa kuwa aad looga badbaadi karo waxaana muuqaalkan kuugu soo gudbinayaa qodobo aad isticmaali karto si aad u kordhiso fursadaha aad ku badbaadi karto ayadoo loo fiirinayo sayniska daawade qatarta diyaaradaha waxa ay la mid tahay qatarta wiishka loo raaco meelaha moolalka ah ee laga tukaamaysto ku dhimashada inaad ku dhimato shil diyaaradeedna 11 milyan ayay hal noqonaysaa waxaana ka badan inaad ku dhimato biyo ku qarqanto ama quraacda inay kugu margato ama aad ku dhimato shil gaari inta aad u socoto meesha waxa laga yaabaa markaad raacayso markii kugu horeysa diyaarad inaad aad uga walwasho daawade maxaad sameyn leedahay haddii oksijiinka maaskarada badbaadada si dhaqso ah kugu soo dhacdo xagee baad u ordi leedahay haddii arrin degdeg ah ay dhacdo xagee weeye meesha ugu badbaadada badan ee la fariisto diyaaradda waxaa halkan kugu soo gudbinayaa 6 qodob oo aad kaga badbaadi karto burburka diyaarad haddii ay dhacdo lambar 1 u labiso sida in aad dab ka baxsanayso waan ogahay kabaha furan inay yihiin kuwa raaxo badan laakiin kuma caawinayaan ama shaqadooda ma gudanayaan haddii ay dhacdo arrin degdeg ah in aad ka baxsato sidoo kale kabaha ciribta dheer ayaa ah kuwa aan loo baahnayn markii ay imaato arrin degdeg ah guddiga badbaadada gaadiidka ayaa sheegay in 68% rakaabka diyaaradaha ay u dhintaan holaca diyaaradaha shilka kadib sidaa daraadeed waa inaad xirataa dhar adag oo aad u qaadato si aad uga badbaado holaca haddii ay dhacdo in diyaaradda dhacdo xiro funaanad gacmo dheera ah iyo surweel adag sidoo kale kabahana ka taxadar xiro kaba adag lambar 2 si wanaagsan u dooro meesha aad fadhiisanayso waxaad isweydiinaysaa waa xagee meesha ugu fiican ee la fadhiisto diyaaradda cilmi baarisyo badan oo lagu sameeyay shilalka diyaaradaha waxa ay sheegayaan in meesha ugu wanaagsan ee la fadhiisto inay tahay qaybta dambe waa haddii diyaaradda marka ay dhacayso aysan dhulka ku dhuufsanin qaybta dambe haddaba waxa meeshaas kaaga soo baxayso inaysan jirin wax la dhaho kursiga ugu ammaanka badan oo markasta waxa ay ku xiran tahay xaaladda diyaaradda ee ku sugan tahay haddaba markaad diyaaradda gasho oo aad fadhiisato isku day in aad raadiso albaabka sida degdega ah looga baxo oo tiri kuraasta meesha uu ka xigo siina calaamadeyso oo xataa haddii ay dhacdo in diyaaradda qiic uu qabsado si aad u baxsato noqo mid foojiga marka diyaaraddu ay kacayso iyo marka ay soo degayso sida cilmi baarisyada lagu hayo waqtiyada ugu shilalka badan waa marka diyaaraddu ay kacdo 3 daqiiqo ee ugu horeyso iyo 8 daqiiqo ee ka horeysa inta aysan diyaaraddu degin hubi in ay kabaha ku xiran yihiin suunkan uu ku xiran yahay miiska hortaadana iska laab sidoo kale lugahaaga space C alaabtaadana hortaada dhigo tan waxay ka caawinaysaa in ay ka badbaadaan lugahaaga inay jabaan sidoo kale aad u foojigna oo u dhageyso arrimaha degdega ah ay sheegayso shaqaalaha xitaa haddii aad marar badan diyaarad raacday waxaa wanaagsan inaad markasta tilmaamaha la socoto lambar 4 isdeji haddii ay dhacdo diyaarad aad saaran tahay in ay lulato ka faa'iideyso waqtiga 90 ilbiriqsi ee ugu horeeya dad fara badan waa ay isku dhex yaacaan waxayna iloobaan in ay suunka iska furaan sidoo kaleeto si taxadar leh u dhageyso tilmaamaha hadhax fadhin masiibada haddiisan jirin wax amar ah oo imaanaya waxa ugu wanaagsan ee aad sameyn kartana waa inaad u diyaar garowdo dhacdada kugu soo wajahan sida daraadeed suunka iska fur lugahaaga gadaal u laab madaxaadana laalaadi waxa ugu daran ee aad la kulmi doonto waa cadaadiska qolka iyo oksijiin yaraan sida daraadeed waxaad haysataa 10 ilbiriqsi ka hor inta aadan suuxin haddii aad aragto oksijiinta oo maaskarada oksijiinta oo korkaaga ka soo dhacday hal xabba adig gasho sidoo kalena isku day in aad qof kala caawiso oo aad u geliso lambar 5 ha ku mashquulin alaabtaada oo ha ka walwalin isku day in aad ka baxsato diyaaradda waqtiga aad khasaariso waxa laga yaabaa in diyaaraddu kugu qaraxdo sida daraadeed lagama yaabo in alaabtaada si degan u qaadato oo meesha ka fako waxba alaab ha isku boojeenin ugu dambeyntii markii aad dhulka soo gaarto ka carar diyaaradda burburtay intaysan kugu qarxin haddii diyaaradda dhulka ku dhacdo fursadaha ay ku qarxi kartaa aad ay u badan tahay sida daraadeed ka carar oo ka fogo ilaa 150 mitir jihada dabaasha u socota maahan dhanka kale oo sug ilaa ay ka helayaan dadka badbaadada si ay ku badbaadiyaan way wanaagsan tahay in wax walba loo diyaar garoobo laakiin ha ka baqin in aad diyaarad raacdo sababtoo ah taariikhda duulista hawada shilalka diyaaradaha galay adduunka oo dhan waxa ay ka yar yihiin dhimashada 500 sanad kasta sida daraadeed 95% rakaabka saaran diyaaradaha waxa ay ka soo baxaan ayaga oo nabad qaba haddaba daawade intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeeni ah sideed uga badbaadi kartaa burburka diyaaradaha haddii aad muuqaalka ka heshay like saar mahadsanid